Heerka dhimashada kansarka ayaa si isdaba joog ah hoos ugu dhacay Maraykanka. Warbixintu waxay muujisay. Akhbaarta caafimaadka xun waxay leedahay hab ay kula wareegto cinwaanada, iyadoo ay jiraan cudurro badan oo khatar ah oo daciifiya iyo caabuqyada soo kordhaya. Waxaa sidoo kale jira horumar weyn oo la sameeyey sanadba sanadka ka dambeeya. 20kii sano ee la soo dhaafay, heerka dhimashada guud ee kansarka ayaa si joogto ah hoos ugu dhacay marka loo eego warbixinta sanadlaha ah ee Maraykanka ee qaranka ee xaaladda kansarka. Iyadoo qaar ka mid ah xaaladaha kansarka, sida kansarka naasaha, ay si tartiib ah u kordhayaan, gaar ahaan haweenka iyo jiilka da'da yar, heerarkooda dhimashadu guud ahaan aad bay u sii kordhayaan, iyo kansarada kale, sida kuwa la xidhiidha sigaarka tubaakada, waxay ku socdaan isbeddel hoose. Laga soo bilaabo 2.18 ilaa 2.22 aan la tirinaynin xogta laga soo bilaabo 2.2. Warbixintu waxay muujinaysaa kiisas cusub oo kansar ah oo si weyn ugu faafay ragga oo ay kordheen 3% dumarka sanadba sanadka ka dambeeya. Isla mar ahaantaana, heerarka dhimashada kansarka ayaa hoos u dhacay celcelis ahaan 7% ragga iyo celcelis ahaan 3% dumarka. Horumar ayaa lagu sameeyey dhimista guud ahaan dhimashada kansarka, oo inta badan ay keentay hoos u dhaca joogtada ah ee kansarka sambabada, ayaa lagu yiri falanqaynta sanadlaha ah. Iskaashiga Ururka Kansarka Maraykanka (ACS), Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (ACT), Ururka Waqooyiga Ameerika ee Diiwaangelinta Kansarka Dhexe (NACR), iyo Maxadka Kansarka Qaranka (NAI). Dhimashada kansarka ayaa hoos u dhacday xitaa 2 sano ee ugu horeysay ee masiibada COVID-19. Warbixinta dhacdooyinka kansarka. Guud ahaan la arkay heerarka da'da ku habboon ee ogaanshaha kansarka cusub ee dhammaan goobaha kansarka, oo la isku daray bishii 2.16 ilaa 2.21. Sherman et al., Kansarka 2.25. Kansarada sigaarka la xiriira, natiijooyinka ayaa si gaar ah rajo u leh. Heerka kiisaska cusub iyo heerka dhimashada ayaa hoos u dhacay dhowr cudur oo sigaarka la xiriira, oo ay ku jiraan sambabada, kaadiheysta, iyo kansarka lariina. Tani waxay ku soo beegantay guulo badan oo laga gaaray daaweynta kansarka sambabada unug yar, iyo sidoo kale korodhka helitaanka daryeel caafimaad oo ay ugu wacan tahay sharciga daryeelka la awoodi karo, badanaa loo yaqaan Obamacare. Natiijooyinka cusub mar kale waxay hoosta ka xariiqayaan muhiimadda siyaasadda caafimaadka dadweynaha si loo hubiyo in la sii wado helitaanka daryeelka la xiriira kansarka, xitaa inta lagu jiro xaaladaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha sida masiibada. Qorayaasha warbixinta sanadlaha ah ayaa soo gabagabeeyey. Warbixinta sanadlaha ah ee kansarka. Celcelis ahaan 100% isbedelada sanadlaha ah (ABS) ee heerka da'da, dib u hagaajinta heerarka dhacdooyinka 2.17, 2.21 ee hal-sideed ka kansar ee ugu badan ee ragga iyo dheddigga, dakasta, iyo dhammaan kooxaha jinsiyadaha qowmiyadaha oo la isku daray. Weli, falanqayntu waxay muujinaysaa meelaha qaar ee u baahan fiiro gaar ah. Tusaale ahaan, hoos u dhaca heerka dhimashada ayaa hoos u dhacay dhowr kansar, sida kansarka mindhicirka iyo qanjirka prostate, qayb ahaan sababtoo ah kor u kaca dhowaan ee baadhitaannada. Waxa intaa dheer, tirada kiisaska cusub ee kansarada badan ayaa sidoo kale kor u kacaya, gaar ahaan kuwa la xidhiidha miisaanka jidhka ee dheeraadka ah, sida naaska, ilmo-galeenka, mindhicirka, malawadka, beeryarada, kelyaha, iyo kansarka beerka. Guud ahaan, kubarada Ururka Kansarka Maraykanka ayaa ka digaya in culayska kansarku uu u muuqdo inuu u wareegayo haweenka iyo dadka waaweyn. Daraasadihii ugu dambeeyey waxay soo jeedinayaan in heerarka kansarka ee haweenka ka yar 5 ay hadda 2% ka sareeyaan ragga dhiggooda ah, taas oo ka saraysay 5% 2.2. Rebecca Siegel, oo ah agaasime sare oo saynis ah oo ka tirsan Ururka Kansarka Maraykanka, isla markaana wax ka qora warbixintii dhowaan la soo saaray, ayaa sheegtay in sida la sii wado dhimista dhimashada kansarka sababtoo ah hoos u dhaca sigaarka, daaweynta wanaagsan, iyo ogaanshaha hore waa war wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, horumarkan waxaa lagu caddeeyey kor u kaca dhacdooyinka haweenka da'da yar iyo kuwa da'da dhexe, kuwaas oo inta badan ah daryeelayaasha qoyska, iyo isbeddelka culayska kansarka ee ragga iyo dumarka, dib u soo noqoshada horaantii 1900yadii markii kansarku uu ku badnaa haweenka. Waxa kale oo jira farqi weyn oo dhinaca jinsiyadeed ah oo u baahan in wax laga qabto. Laga soo bilaabo 1989, tusaale ahaan, markii dhimashada kansarka naasuhu ay sare u kacday, heerka dhimashada ayaa hoos u dhacay 4%. Haweenka madow, si kastaba ha ahaatee, waxay weli la kulmaan 4% heerka dhimashada kansarka naasaha ee ka sareeya dumarka cadaanka ah. Farqigaas ayaa jiray 10 sano. Horumarka ka dhanka ah kansarka waxa uu sii wadaa inuu carqaladeeyo farqiga u dhexeeya qowmiyadaha iyo qowmiyadaha badan, ayuu yiri Ahmedin Jamaal, madaxweyne ku-xigeenka sare ee ilaalinta iyo sayniska sinaanta caafimaadka ee Ururka Kansarka Maraykanka bishii Janaayo. Waa lagama maarmaan in la caawiyo joojinta takoorka iyo sinaan la'aanta daryeelka kansarka ee dhammaan dadyowga.
Qaadashada tilaabadan waxay muhiim u tahay in la xiro farqigan joogtada ah iyo in aan u soo dhowaano joojinta kansarka sida aan ognahay qof walba. Warbixinta sanadlaha ah ee 2/25